kulantii waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni gaas iyo gorfaynta buuga oo toddobaadkiiba hal habeenada kala socotaan muuqbaahiyaha MMTV haddaba martida caawaan iskiin baro Yusuf Xaaji Cabdullaahi Xasan Macallin Yusuf waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta marti u noqdo MMTV iyo gaas iyo gorfaynta buuga aad baan ugu faraxsanahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulantii waxaan wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni gaas iyo gorfaynta buuga maantana mar labaad waxa marti uu iigu ah barnaamijka MMTV xarunta Stockholm qora amba Macallin Yusuf Xaaji Cabdullaahi Xasan oo barnaamij horena aynu ka qabanay maantana waxaanu gorfaynaynaa laba buugo kale horta ugu horeyn ba Yusuf soo dhawow MMTV soo dhawow mar kale aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo TV-gaaga iyo asxaabtaadaba waan salaamayaa adeer aad iyo aad baad mahadsan tahay maanta hadda waxaynu eegi doonaa sheekooyinka malaawaalka iyo laba buug ayaynu maanta gorfayn doonaa oo la kala yidhaha filanwaa iyo cawiya ayaan buugtan bal inooga warbixin gudubta naga sii waxay ka hadlayaan bismillah runtii qaybtaas malaawaalka sheekooyinka runtii aad baan u jeclahay waxaanan ka sameeyey hadda intii banaanka taala waa 7 buug buugga la yidhaahdo gurxan iyo gabaree maayo runtii buug cajaa'ib ah ummadda markuu soo dhaxgalayna aad iyo aad dugsiga sarena lagu dhigo sida caadiga ah gidigoodba waa lagu dhigaa laakiin isaga sida manhajka oo kale bay macallimiin badan u adeegsadaan waxa kale oo aan dhaxgalo Yusuf halkaasi gabramaayo bal dadka dhalinyarta aan afsmada u garanay gabramaayada gabaremaayo u sharax inta badan wax ma garanayo inay maskaxda bini'aadamka tahay wax caalamka oo dhani ka siman yahay laakiin anigu sawir in la hayo mooyaane aanan nolol ku arkin noole dadka shabaha oo badda ku jira weeyaan dhinacna dushana ka qof xagga dhanka kalluunka baa la yidhaha gabaremaayo marka buuggaasi si qiso cajaa'ib loo ku bilaabanaya wax yar baan inooga sheekayn doonaa inoo soo qaadi doonaa gurxan iyo gabaremaayo la yidhaha buuggaas buugga kale waxaa la yidhaahdaa bishaaro iyo bilkhayr halkan horteena waxa yaala cawo iyo ayaan iyo filanwaa markii laba buug ee filanwaa iyo cawiya ayaan hadii ku bilowno filanwaa sheekooyinka dadka carruurta akhri doonta amba dadka carruurta loo akhriyi doono sheekooyinkii ugu xiiso badan sheekadiisu horta waa sheeko bilow ilaa dhammaad wada socota oo maaha sheeko intay bilaabato kala googaaysa filanwaa wuxuu ka hadlayaa wiil ku nool magaalada Muqdisho aan hadal badnayn yaraantii hadalku ka soo raagay markii dambe iskuulka uu galayna dantiisa uun ku kooban iyo waxbarashadiisa aan hadal badnayn aabihii iyo hooyadii oo hooyadiina tahay qof magaalo ku dhalatay oo reer Banaadir aabihiina nin gobolada ka yimiday oo maxaan ku dhadaa dhulka baadiyaha ama miyiga iyo magaaladaba yaqaan baa waxa la isla garanayaa ninkan aan u dirna baadiye oo dadkii maxaan ku dhahaa ayeydii iyo adeeradii iyo wixii baadiye nagaga harsanaa bal muddaha la soo joogo oo caanaha geelana ha soo dhamo inankii waxaa loo dirayaa baadiye wuxuu tegayaa hawdka markuu tago iyo wuxuu raacayaa inamadii geela ilaalinayay oo qaarna dabadhoonna yihiin kuwa yaryar ee daada yar leh carruurta geela raacda qaarna rag waaweyn yihiin geelii yaa col geela qaadaya iyaa soo weeraraya dadkan geel jiraha ahi waxay yaqaaniin haba isku badbaadiyaan laakiin isagu iska dhex taagan baa isagiiyo geelii la isla qaaday waa la kaxeeyey inankii dhib badan baa loo geystay waa la sarbiyeeyey waa la sii garaacay dhib badan baa loo geystay geelii waxaa la geeyey meeshii dee raggii ka soo duulay ay joogeen inankii waa la waraystay sidii loo sheekaysanayey inankii waxaa gurigooda uu xamar kaga yimiday waxa ku jilan ama waxa lagu hayaa reerkan geela dhacay abaanduulihii geela geelii inankii yaraa geeli waa lala qaaday kabacdi reerkii markuu tegay reerkii geela qaaday wiil ay leeyihiin oo xamar wax ku barta oo xerownimo uga tegay dhulkaasi maxaan ku dhahdaa reerkaas waxa uu ku jilan yahay oo lagu hayaa oo cuntadiisa siiya oo maxaan ku dhahdaa uu ilmahooda yahay inankan yaree geela lala soo qaaday
qoyskoodii oo muqdisho degan. okay cajaa'ib aad iyo aad dunidu soo koobana. صح markii arrinkii la xaqiijiyey qoyskii geela soo qaaday waxay yidhahdeen war ma reerka hebel inoo haya iyaan geeloodu soo qaadaynaa inankana dhibaatadaas iyo dhaawacyadaas aan u geysanay. horta geelii isagoo sidiisii u badqaba ayaa la soo celiyey oo halkii laga qaaday lagu soo celiyo nirgihiisii oo maxaan ku dhahdaa gaajaysan lagu soo celiyey. inankiina waxaa la yidhi waan baananaynaa oo dhaawacyada iyo dhibaatada aan u geysanay baan ka baananaynaa, gabadhna waan kusoo daraynaa. maasha allah. markaa ninkii baadiyaha laga diray meesha wuxuu kula kulmay arrin cajaayib leh, xanuun badan, dhib badan baa loo geystay. laakiin soomaalida oo gebigeeduba hal saan yar ku wada fadhida ama hal salli ku wada fadhida, dhammaanteedba ehel iyo qaraabo ah, hal faamili ah, waxa markiiba arrinkii uu suurto geliyey. markaa buggan waa bug sheekadiisu aada u dheer tahay. inankaasi wuxuu la kulmi doonaa wiil kale oo dhaqan celis loo keenay oo isaga noloshu ku adkaatay, laakiin isagu wuxuu noqday nin noloshii la qabsada. dadkii uu meesha ugu tegay salaada tujiya, wax badan bara, caafimaaday. inankii oo gabadh la soo siiyey baan xamar kusoo laaban doona insha allah. maasha allah. marka waa bug aad iyo aad u sheekooyin badan, meelo badan sheekooyinkiisu marayaan. صح ما شاء الله aad u wanaagsan kulay akhristaha ayuna inta iyo in kale oo ka badan baa ku sii jirta oo wanaagsan. waa hagaag marka buugan yaad isla akhrisan iyada ku tala gashay buugan filawa inta badan waa buugaagtayda sheekooyinka matalaada waa buugan ugu da'da yar le ugu talagalay. marka allaylehe wixii 8aad 9aad ka sareeya way akhrisan. wadaadoduna ilaa mihiin waayo wadamada way yara kala duwan inta badan 15 wixii ka sareeya 15 iyo buugaasna waa markaasi waa akhrisan. صح maxaa kugu leeyahay buugan inaad adigu sheekadan xageed seelkeed ka malaawashay? anigu waxaan ahay nin dhaqanka ku dhex jira, waxaan ahay nin baadiye ku soo barbaaray, baadiye ku dhashay, baadiye ku soo weynaaday, magaalo yimiday, labadii dhaqanba wata. marka dhibi kuma hayso inaan iyo dee hal abuurnimadii kale oo ii dheer. marka buuggan intaasoo keliya maayna waxaa ku dhex jira suugaan badan oo ama dad kale ha tiriyaan ama anigu aan tiriyo kooban oo taageero u ah sheekada aad iyo aad waliba dimka carruurta aan hadalna aad bay kusoo badanaysaa aad in dhaqankii caanii gelayo taasina aad bay u muhiim tahay. sax taasina waan gartay. buuggan kale hadda baadii nagu galnay ee cawiya ayaan cajiib cawiya ayaan waa buug aad iyo aad u cajab badan. wuxuu ka warramayaa dhaqankii soomaalida ee hore siduu u adkaa iyo sida ay dadku maxaan ku dhahdaa cilmi falaga uga faalin jireen ama ay uga warrami jireen ama wax uga sheegi jireen. buggani waxa uu ka warramayaa nin baa waxa u dhalanaya wiilkii curad baa u dhalanaya habeenada ka mid ah. habeenkaas uu u dhashay wiilku awowgii oo maxaan ku dhahdaa dadka xidigaha iyo falaga iyo samada eega ah ayaa wuxuu odhanayaa wiilka habeenkaa dhashay caynkaasa wiilka habeenka caynkaasa dhashay waxa weeyaan laba arrimood weeyaan inay dadkoo dhani dhammaadaan uu keligii soo hadho iyo in la dilo. marka ninkii wiilka dhalay arrinkii aabihii isagu wuu ku qancayaa, laakiin gabadhii dhashay arrinkaa way kasoo horjeesanaysaa. arrinkii iyada oo sidii la isku hayo iyo habeenkii labaad aabihii dhimanaya. waa amarka ilaah. habeenkii labaad ee uu jiray oo sheekadiina la hayo bay aabihii tiisa noqonaysaa. gabadhii markaasaa la leeyahay annaguna waan dhammaanaynaa, wiilkan waa in la dilaa. markaa soomaalidu waxay yidhaahdaan dhaqanka noocaasa ilmaha habeenka caynkaasa dhasha waxaa la dhigi jiray meesha geelu ka soo xeroodo. marka geelaasi dee hadday ku joogsadaan iyo hadday haraatiyaan iyo saasuu ku dhiman jiray. kii ilaahay taa ka badbaadiyo waxa la dhigi jiray ay cidla ah si dugaagu cuno. taana hadduu ka badbaado ilmaha waa la diin jiraa layidhi. markaa kan hooyo geesiyadaa dhashay way diiday,
ilmaheedii bay la dhuumatay way qaadatay maadaama ninkiina ka dhintay oo reerkan waxay ku joogtaaba uu yaryahay ilmaheedii bay la carartay waxay la tegtay reerkii ay ka dhalatay halkiibuu ku koray haba ahaatee inankii markuu raad qaaday oo 2 sano iyo wax lamida gaadhay fartii uu kor u qaadaba ama waxbuu jabiyaa ama ishuu ilmo kale ka geliyaa ama dhibaato abuuraa waxaasoo dhib ah hooyadii inankaa dhashay way ugu dulqaadatay ugu dambayntiina buugga Cawiya Ayaan wuxuu ka warramayaa ninkii oo guulaysanaya hooyadii oo guulaysanaysa reerkii oo wada guulaysanaya ninkii dilka loogu talagalay oo reerkii uu ka dhashay oo aayayo ugu dambayntii aad iyo aad waa sheeko xanuun badan laakiin dhaqankaasi ilaa ma jira mise ma jiro dhaqankaasi hadda ma jiro laakiin waa wixii jiri jiray beri hore anigu goor laga tagayna garan maayo laakiin taariikhda hore ee Soomaalida iyo sheekooyinka odayadii hore ka waramaan dhaqankaasi waa dhaqan jiray xidigiska iyo xidiga faldoon laakiin ilmaha la dhigayo meelaha khatarta waa khatarteeda leedahay laakiin alxamdulillah kulli imka jino dadkii kulli cilmiga iyo diintii baa imka la barto waa laga gudbay buugana marka ya akhristayaasha buugani wax yar uu ka darajo sareeyaa laakiin uu qiyaastii waa ardayda dugsiyada sare iyo wixii jaamacad iyo meelahaasa dhalinyarada waa buug dhalinyarada khuseeya inta badan waxa kale oo aad iyo aad u xiiso badan 2 buug oo midna la yiraahdo bishaare iyo bilkhayr صح midna la yiraahdo nabsi iyo nasiib hadaynu ku horeyno bishaare bilkhayr ta bishaare bilkhayr sheeko cajaa'ib loo ku bilaabanaya dhulalka Soomaalidu degto koonfur iyo galbeed ha u badnaatee waxa ka jiray wax la yiraahdo xadrada wadaadada yes صح nimanka xadrooyinka jooga waa niman admararka qaarkii la yaabayso oo dhaqanka diinta islaamka aan ku fiicnayn maxaan ku raada sida wax loo cuno iyo sida dadka wax looga qaato arrinkaas aad iyo aad ugu foogan wax aad iyo aad u badan oo aan wanaagsanayn laga soo sheegi jiray marka subaxyada ka mid ah bay gabadh xaadsan ducaale la yiraahdaa salaadii subax markay tukato iyo hurdadii ku laabanaysaa kabacdi waxay ku riyoonaysaa mas weyn ilaahay baa weyn oo waaxid oo 2 madax leh oo iyadii labadeedii gabdhood oo meel geed hoostiya fadhida soo weeraraya marka maskii bay la dagaalamaysaa ugu dambayn maskii way dilaysaa iyadoo oo riyadii ka naxsan bay soo baraarugaysaa way soo baxaysaa gurigay ka soo baxaysaa kabacdi waxay maqlaysaa durbaan nig gabadh baa u soo wareegaysa markaa waxay leedahay xaadsaneeyaa walaalo dab isii say leedahay waxaan dhacayaa muxuu yahay maanta durbaanka la tumaya oo miyaanad ka warqabin sawkii xalay sheekh xadreeye ina soo kordegay oo guriga reer hebel bay fadhiyaan cajiib reerka waxa u caado ah markii dad martii yimaado inuu reer waliba cunto soo sameeyo oo dee dadkaas loo wada geeyo xaadsan cunto aad iyo aad u macaan bay diyaarisay isla markiiba waa la qaaday raggii xadrada fadhiyay ee socotada ah iyo dadkii la fadhiyey cuntadii markii loo qaybinayay xeedhadii xaadsan ka timid ama quraacdii xaadsan ka timiday sheekh xadreeyaa la hordhigay sheekh xadreeya aad buu ugu bogay wuxuuna markiiba intii garab fadhiday waraystay war xeedhadan gurigii ay ka soo baxday waa ay markaasaa la yidhi waa xaadsan ducaale xaadsan gabdha ma leedahay hayo 2 gabdhood bay leedahay midna ay 15 jir tahay midna 13 jir tahay xadreeye intuu raggii ka dhex kacay buu yidhi maanta bishaaradii iyo maxaan ku dhahdaa hibadaydii waxay dul hoganaysaa guriga reer xabaade ee xaadsan ducaale waxaanan ka codsanayaa in gabadha bishaare la yidhaahdo la siiyo hase yeeshee dadkii meesha joogay rag iyo dumarba nin hadalkiisa wax laga soo celin karaya ma ahayne maqbuul iyo aqbal iyo waan ku siinay baa la isku wada raacay warkii oo ordaya markuu xaadsan u tagayna xaadsan waxay ku jawaabtay kuwiina siista
odaygaas 9 jirka ah Kuwiina siista. gabadhayda guursan maaye haweenow kuwiina siista gabadhii dhib badan baa la kulmaya inantii yareed wadanka way ka cararaysaa ee la siiyey dhib weyn baa la kulmaya waa buugga ugu sheeko dheer uguna sheeko adag Okay. xaaladda uu ka warramayo bishaare iyo bilkhayr wuxuuse ku gabagaboobayaa reerkii oo dhammaan wada guulaysanaya Masha iyo xad reeye oo inta boolisku u yimaadeen la xidheen laysku jabiyo jeelka la dhigayo laleeyahay bal burhaantii aad dadka ugu hanjabayseed ku faanaysay Atus. bal jeelka kaga soo baxa Ay. buu ku dhammaanayaa Masha. Walka bishaare bakhayrna ay ka mid marka bishaare iyo bilkhayr waa halka sheekada ay kasoo galeen waa laba gabdhood oo walaala ah labadaba dhibtii loo geystay aanay mid fudud ahayn qofka buuggaa akhriya iyo baa aada u garan doona waana waxyaabo imka jiray waxyaabo dhaqankan aad ugu jirin maaragtay habla yar yar odayaal la siiyo Exact, waa sax laakiin si fiican bay yeeshay masha Allah waa si wanaagsan marka magaca bishaare bakhair labada hablood labada hablood ee walaalaha magacooga weeyaan sheekooyin kale oo buuggaasi ku jira toode sheekooyin badan oo wada baaraleel ah wada barbar ordaya yaa halkaa ku jira gabadhii waxa weeyaan dhib weyn bay la kulmaysaa way ka cararaysaa meesha ay ku dhalatay magaalo weyn bay tegaysaa booyeysay noqonaysaa ugu dambeyntii nin dhakhtar oo caana guursanaya way guulaysan waa sheeko dheer marka ma sheekadaas uu ka hadlaya bilow ila dhamaad isagu ka waa sheekada sheekooyinka noocanihi waa min bilow ilaa dhamaad sheekooyin baaraleel ah ama sheekooyin barbar socda ha jiraan laakiin waa mawduucaas aad iyo aad masha Allah waa si fiican kaana waxay 18 jirkii oo ku yaray waaweyn bad ugu talagalay carruurta waaweyn iyo dadka waaweyn buu akhrisan aad iyo aad marka dadkii imka akhristay goorma qorto buugga 12 baan soo saaray 2012 baan soo saaray waxaan ku qoray waliba buuggaas intiisa badan ra'sul madina jigjiga magaalada jigjigaan ku qoray buuggaas magaalada magaalooyinka masha Allah baan ku qoray oo aan muddada fasax ku joogay markaas kaaga dhalatay adoo halka joogay ku dhalatay sheekadu mise may sheekadu xaggan ay ka bilaabantay Stockholm bay ka bilaabantay laakiin xaggaasan ku soo gabagabiyay masha Allah waa si wanaagsan sheekada marka halkeed ka soo dhigtay adoo mise waad ka fikirto waa mawaalkaas sheekada soo dhigtay maaha laakiin waa sheeko xaaladda iyo wacyiga iyo waqtiga iyo dhibaatooyinkii ummadda soo maray ah iyo waxaa dadka aad ka maqlayso yacni dhibaatooyinka gabdhaheena soo gaari jiray allaha u naxariistay Ibrahim Gadle oo reer Jabuuti ahaa abwaan weyna ahaa markanuu tirinayo heestii ahaa maxaa dayr cad geel halaabo dib jiray uu cunay dugaago ninkii lahaa dayday ah yacni hablihii dhibaatooyinka dhulkooda ka qabsada uga tegi jiray bay markaa qisooyin caynkaas aad abwaan khatar u ahaayaan waxban alla u naxariistay erigii oran jiray man maranay waxa weeye adigu maankaaga yuu noqon meel ciidaba friisa hayso ayay ahayd marka buugan kale dhalinyartii akhrisatay maxay falcelin ka soo celiyay aad iyo aad runtii waa buugaan la yaabay maalin maalmaha kamida baa waxay soo wacday gabadh marka waxay igu tiri biblioteekan tegay waa maktabadan tegay buuganaan qaatay wax yar baan akhriyay buugga xaggiisii dambe kabacdi ilmahaygii oo ila socday baan qolka ilmuhu ku dhageystaan heesaha yaan heesu daaray waxaan soo baraarugay bay tidhi maktabadda waa la xidhayaaye ka dareera iyadoo la leeyahay kabacdi buuggii waxaan u qaatay guriga ilaa aan ka dhamaynayay waan soo jeeda umatin habeenka o dhan marka waa buug sidaa u xiisa badan maktabadaha Sweden oo dhan wuu yaalaa meel walba waa laga helayaa dadka aan Sweden deganayna waxa laga helayaa isaga oo buug ahaanana anigana waa laga helayaa shirkadda iftiinka aqoonta waa si wanaagsan ugu dambeyntii haddii aynu akhriska faa'iidada uu leeyahay bidi u wanaagsan tahay maxaad kula talin lahayd waalidiinta iyo dhalinyarta ugu dambeyntii qorayso macallinada waa tahay oo kulli waad waxbarashada ku dhex jirtaa dunidan joogno iyo waqtigan maanta aan joognaba qof aan wax akhriin nolosha kama gayoonayo qof aan wax akhriin waxyaabaha ugu muhiimsan waxa kamida maanta wax kasta wuxuu kuugu imanayaa qoraal haddaanad akhriin oonad akhriska garanayninna qofna maanta kuuguma naxariisanayo qofkan wax ma yaqaane wax ma akhriyi kare ka caawi marka akhrisku waa wax weyn waa wixii qiimaha uu leeyahay qur-aanku inoo caddeeyey
oo markii calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed ummadda islaamka loo soo dirayey ama caalamka loo soo dirayey lagu bilaabay iqra akhri ha akhri marka akhrisku waa wax weyn waa wax qaaliya waa waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaahayna quraankiisa ku cadeeyay oo dadka bini aadamka u soo diray aad iyo aad ma sha Allah aad iyo aad bamasta inta wax kale oo ku diraysid qorayso okay soo maanta wagaad waad iyo aad bamasta wagaag daawada intaas ku soo gabagabeynaa barnaamijkeeni maanta gaas iyo gorfaynta buuga oo aan dhowr buug ku falanqeynay maanta tan iyo kulantii dambe barnaamijka mid lamid ah waxaan idinkeedkina nabadgelyo